wararkii ugu dambeeyay oo galabta naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in halkaas ay soo gaareen wafdi ka socda dalka Itoobiya gaar ahaan uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya waxa kale oo kamid ah wasiirka kaliya ee dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ugu jira dhanka Soomaalida Axmed Shire waxaana ilaa iyo hadda ay kulamo kala duwan aqalka madaxtooyada ee magaalada Jigjiga kula leeyeen madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo waliba xubnaha ay aadka isugu dhow yihiin oo tan iyo shalay ku jiray xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada gaar ahaan intii aan laga qabsan aqalka madaxtooyada isaga baxay magaalada Jigjiga wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda ay xubnahaasi guddiga ah ee soo gaaray magaalada Jigjiga soo jeediyeen in laba qodob oo kala duwan oo ay kamid yihiin in Cabdi Maxamuud Cumar uu wareejiyo ciidanka iyo hubka isla markaana talada uu ku wareejiyo mid kamid ah saaxiibadiisa uu ku kalsoon yahay oo doonaha ahaade laakiin iyo talada labaad oo ah inuu door bido xaalad dagaal oo deegaanka ka dhacda wasiirka Soomaalida ee dawladda federaalka ee dalka Itoobiya Axmed Shire iyo wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ee soo gaaray Jigjiga ayaa ilaa iyo hadda kulamada kala duwan ay la leeyihiin dhinaca xukuumadda waxaan jirin kulan ay la qaateen odayaasha iyo waxgaradka maadaama xaaladda magaaladu ay tahay mid kacsan warar kale oo ka helaya laga helayo magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in xaaladdu ay saacad kasta isbedeli karto Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku adkeysanaya inuu xilka ka degi doonin waxaana uu sheegay in wadiiqada sharci darrada ay la maray ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan waxaana uu ku eedeeyay xisbiga talada haya ee OPDM inuu galay mid kamid ah jarimooyin isla markaana uu military ku soo weeraray markii ugu horeysay dhulka Soomaalida gaar ahaan maamulka xukuumadeed oo dhisan waxaana uu sheegay in tallaabadaas ay tahay mid aysan dhankooda aqbali karin waxa uu kale oo duhurnimadii booqday qaybo kamid ah isbitaalada iyo xarumaha dawladda oo shalay ciidanka militariga Itoobiya ay qabsadeen sidaas oo kalena waxa uu tagay wadaadka ugu sareeya diinta Kaatooliga ee fadhigiisu ee magaalada Jigjiga oo uu raaligelin ka siiyay falkii lagu gubay qaar kamid ah kaniisadaha laakiin baadarga ayaa la sheegay inuu san aqbalin arinta loo soo jeediyay